لوجو باستو رومانتكس كده رومانتكس كده رومانتك أيوة اسك دقينا وان اسك دقينا وان اسك دقينا رومانتك يا marka hadduu muuqaalkan ku soo gaaro noo sii sheergareeya meel sarena gaarsii gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay marka anaga waa idin jecelnahay walaalaheena qaaligaa tihiin sharafta iyo qiimaha badna dumarkii wanaagsanaa qiimaha iyo sharafta badnaa tihiin marka hana xumeynina mar madax sar halkaas noo saaran day sas inii wadna sas sawaay inta xun hanoo qabanina war gabadha fiiri kugu dhaqanka ah kugu diinta ah ilmahaaga beri markaa dhashid markaa gabar Soomaali ilmaha ka dhashid meel loo raacay la leeyihin reebala abtu reebala adeeryaal reebala ayeeyaal reebala awow la dhahaa ya tan intee la dhahaa tan intee la dhahaa waay intee la dhahaa tan intee la dhahaa ii sheeg maba kasaay ana maba kasaaye sinjiga la rabaa sinjiga sinjiga marka maxaa waay dadka qaar qolocan way jiraan qaar toosan way jiraan marka dalsaqoon raal lahaada koobka kafeera iska cabaaya marka muuqaalka dug soo gaaro meel sare noo geey walaalihii qaaliga waan salaamaya gabdhaheena qaaliga waan jecelnahay mar walba muuqaalka dug soo gaarane meel sare ha noola geey marka waxaan ku leeyahay YouTube kuwa kala kaxay wax yar noo dhiman waa idin baryaa wax yar noo dhiman intaas yar garab nagu siiya intaas yar garab nagu siiya intaas yar garab nagu siiya waa idin baryaa mar walba garab nagu siiya hay wax yar noo dhiman kun intaas garab nagu siiya duu muuqaal ku soo gaaro subscribe like share comment-iga ha naga baqaylan walaalkeyga qaaliga ama walaasheeda qaaliga muuqaal kale noo soo socdo aan oo hadlayno daawasho wacan كدك فرح لوجو باستو يا اوكي فرح لوجو باستو ومقلوسها فرح ياش لوجو باستو waxay leedahay romantics كده waa maqleynaa adina gabadhaha nagu dirin waa maqleynaa diyaaranahay gabdhaheen inaan xaal marsano xaali xumaan shirweyne weyn aan qabano oo isku keenay ragga iyo dumarka marka noo dulqaata waxyar xadaad buuqbuuq mas hadal aan maqashaan hadal iyo buuqbuuq maqashaan xaafadan joognaa jimco waaye jimco jamiila jimco wanaagsan marka war adiga gabadhaan ugu diran gabadhaan soo harta ada xaliima matiid anaga isle gabdhaheen anaga isle waa isdagaal karnaa waa heshiin karnaa dhibka ma naga daasido walaalaya gabre dhibka ma naga daasid فرحياش لوجو باستو ياشا انت اوجو جوابايا فرح لوجو باستو adiga adaa laga rabaa inaad aad nin romantic noqoto ama aad nin jirkiisa intuu dhiso lagu fiican meesha la imaada noqo ma ahana yaa midaan ka dhawraa taas ooy mid baan ka leeyahay taas saaxiib na faham riyaa gabdhahan ugu diran mijaha baastada aan lahaano ama mijo qut aan lahaano ama mijo wir aan lahaano riyaa feer wax la dhiso feer weyn oo la dhiso wax ma keenayaan the mind the fashion differentiation the fashion the mind maskaxda waxay keentaa maskaxda weyn inaa maskaxda ka weynaataa fiican inta feera dhiila jirka saas dhiila maskaxda dhisan ayaa wax dhisi karto ya fikrad fiican keeni karto shaqo fiican qabsan karto laakiin maskaxaan dhisneen jima biraan qad qaad saasaan dhe saas wax ma tareeso aqliga waay aqliga inuu aqliga shaqeeyo hadduu calool leeyahay calool kintaal intaas leeyahay oo reerkiisa ku qanacsan yahay gabadhiisana uu qanacsanayo qadarinayo sharfayo that you accept is good man haddii ayada ay qanacsan tahay bidaar ha lahaado ha lagu dhudhuubnaado ha mijabaasta lahaado ayada ay jeceshahay biilkaada fartuu ka saarayo wax walba uu siinayo qiimo walba uu siinayo
just ها romantic هذا اللي ما أعرف إنك لو كلاتي أفرت ما أعرف romantic رت شيء Soomaali مثلا لو romantic مرة جرى جعل romantic أري romantic معناها ما حيتاي أري romantic means romantic means standing for relationship boy well reaching well desires performance family relationship family two man or women waa inay unit noqdaan unitkaas marka maxay tahay work together inay noqdaan aan rabnaa ya marka dulqaad samee xaafadaan joognaa lagu baasta meelaha hala imaanaha gabdhaha haddii idi diideen ama meherka idinku qaaliyeeyeen waxa idinkugu qaaliyeeyeen ma ahan xumaan ee waa wax idinka ladika arkay ma fahanta waa wax idinka jeebkiin laga arkay jeebkiina buuran ee jeebkiina caata ka dhiga jeebka haafiya jeebka kala gooya cadka gooya jeebkiina buuran ma fahanteen su-aasha kaleeto aan leedihiin annaga Morocco u soconaa doonteena waa raran tahay inta waaye intay ku dhacday annaga Morocco tageena gabdhaha Soomaalida uma soconno meherkooda qaali nagu noqday iyo qararac waxaas ka baxa Soomaalida laba waaye rag qaar waxay ka tahay naag cadaan soo guurso oo kaliya soo faan oo social media la imaa wadada ka tahay wallahi waa dhaaran sax waa dada ka tahay gabadhan cad inaad soo guursid madhowl soo firisid xaaskeyga waatana inaad dadaas saas ka tahay laakiin gabdhaheena gabdha ka qiimo badan ma leh jeebkana ma furi karno wixii aan haysanaa intaas iska walaalo intee ka keenayna noo sheeg ya intee ka keenayna noo sheeg haddaan shaqaysano biilka qaar hooyaan siinina qaar ilmiyaa la siinaa ayadana qaaraa la sii biilkaaga fartaa laga saaro maxaa waajib ah gabadha haddaan jeclaan sukaansanaya inaan mar walba lacag aan sig mishaarkan ku shaqaynaa inaan siiyo waajib miya yaa ii sheeg waa cabdi adaan kula hadlaya cabdi adaan kula hadlaya waajib miya ii sheeg waajib miya haddaan isjecelnana gabadhan walaashii xiriir naga dhexeey gabadhan Soomaalida ana walaasheeda xiriir naga dhexeey maaha inaan mar walba ana waa fiiri aroosa raba inaan guursadaa rabaa inaan shaqeeyo waayo guriga inaan dhisaa laga rabaa alaabta intaan diyaariya laga rabaa fiiriya alaabta inaan diyaariya laga rabaa inaan soo doontaa laga rabaa gabaati isoori inaan ka bixiya laga rabaa wixii yaraa aruurin lahaa laba maal kadib habeenka casho uga wada intay ka keenaya arooskan dib u dhac muku imaanaya miya ya dib dhac muku imaanaya waan ku jeclahay tuubada oo iska socoto xiro waan ku guursanaa si wanaagsan si sharaf leh lagu tumaa arooskeena gabdhaheena qiimaha badan sharafta badan dumarka dunida ugu wanaagsan weeyaane waay waryaa nagu diran gabdhaha saxa waa cabdi gabdhaha nagu diran sawaadi gabdhaha qatar kasi bixinaysaa gabadha ku jecel wallaahi bilaa oo tala inay ku shilin ku weydiineen gurigeeda koobka shaaha kacabib ee bigaaska masalada xab canjeera ka cabaysaa waa gabadha mustaqbal rabto waay in the future gabadha rabto inay ku shilin ku weydiineen ad inaa u gartaa laga yaabaa markaa 2 bil masbil joogtid maanta wad usoo shoomig bishi hal mar usoo shoomig garee war ani 200 mase 150 qof qaataa gabadha inuu guursado rabaa habeenkaas hadduu ku wado intee wixii ka imaanayaan masdalxiis u wada ruuxaas waxaa la isu keenaya waxaas waaye waxyaabaha oo crisman ama qofka kuridaya waxaas waaye ma fiican gabdhaheena waxaan leeyahay xaaladaas kasoo dega wiilka waxaa dhaha aroos qaali ii dhig habeen kastana casho ii wadaa leedahay intay iskeenay marka ma iskeenaysaa ii sheega saan talama wax ka bedela ma iskeenay ya habeen kasta cashan ku wadaa 1 2 3 labo qaataa bishi markuu labada qaato mas waxa laga yaabaa waxa weysan wax ka siina laga yaabaa cidan inuu ku tirsan yahay cidan inuu siina laga yaabaa ama lees iskool ka bixinayo adina waxa ka rabtaa ogara marka lacag ka rabtaa shopping ka rabtaa baati ka rabtaa kabiya rabtaa jaceelkaas marka jaceyl ma ciqaab
qaamiya jacaylka saas qaamiya ishak mid kale jirkaaga dhisa dhaada maanta jim gal waqtigaas hoola-aantaas tikiinani hoola-aantaas ma beesa ani ilan gabadhan quruxda badan qiimaha badan rabo inaan guursado marwaday noqoto inaan u shaqeeyo waayo dameer camal aan u xamaasho waayo sida iyada aan uga dhigi boqorada uga dhigi lahaa maalinteeda aan u qurxin lahaa arooskana aan u quruxsan lahayn oo u quruxda badan aan ka dhigi lahaa aroos wanaagsan oo qiimo badan oo qurux badan inaan uga dhigo waa inaan u shaqeeyaa si fiican aan u shaqeeyaa qiimo badan inaan u sameeyaa marka arooska aroos wanaagsan inaan ka dhigaa waayo marka isku day ha ku dirin gabdhaha iyo wiilasha isku dirin fuyuuskana saasa ku raadinin walaalkii qaaliga hayo gabdhaha walaalaheena waaye waan jecelnahay waaye aan maanta markaan gabar markaan jecla xiriir la leeyahay gabar markaan jecla aan xiriir la leeyahay gabadhaas waxaan jeclahay inaan wanaajiyo abaayo intaana soo helo maxay meel aan u dhigay xaalad marka intay wax noo maraan u sheegtid laakiin maahan soo bax intaa hebel casho aadan meel hebel casho aadana waa soo dalxiiseena baashaal kala aadana lacagta waqti ayadaa isku dheeraysa waqtiga hadhow marka waxay tahay intee waqtiga iga dhumiye wax ma haysta runta wax ma haysta ninkan wax ma haysta ilaan wuxuu soo helo wax yaruu soo helo habeen kasta adoo casho kugu geenaya ama shopping kugu soo sameynaya hay adina ma fikirin maan laayaata ma fikirno war arooskeena wax meel noo dhig ma dhihin asana ma fikirno war gabadhana guursa rabtaa wax meel dhiga ma dhihin hay dhow markaas anaa jecel ma kasay romantic ma kasay oo romantic aan mar walba inaan qofka aan mar walba wax si kaas romantic maahan romantic waa gabadha gurigeeda kugu sugayso ku sharfays ku dhaas walaalkii qaali waxa masoo shaa wixii yaraa ee badan soo shaa alxamdulillah shukri almulki dhaas taas waay marka aan daawano waraa gabdhahan ugu dira cabdiyo dad waxaa jira hadda qurbaha ka imaanayo Morocco socda kaliya ee ka tahay raag cadaan soo guurso sababta Soomaaliya anaga hadda Soomaalina qurbaha marka imaano wax luuqad yaqaan waan ugu yiriin ma fahanteen Soomaalida qurbaha markay tagto wax ma barato waxna ma faa'iido kaliya waxay tagtaa meesha afar Soomaali degan tahay ay fadhiisataa muxuu yiri iyo maxay tiri iyo koob shaantee dalbaan maanta leeyahay af Soomaaliya ku dalmayaan wax luuqad yaqaan wax luuqad wadanka ay joogaan baranayo waa hal iyo laba waa yiriya sababtoo ah Soomaalida wax ma barato waa ayaga dhanba zero waay xabadka wax yaqaanay xabadka wax bartana waa yiriin ma fahanteen marka nin xayawaan oo Mareykan ama Ingiriiska 30 sano iska jooga wuxuu ku leeyahay aniga Morocco oo socda naag cadaan soo guursana naag cadaan waa guursi kartaa ilaahay ku baneeyo soma guurso laakiin asku day inay gabdhaheena sharafta iyo qiimaha iyo qadarinta ilaahay oo siiyay inay ku niijibisa dhacdo aniga maxirka ugu qaaliyeeyeen inta iga dhigeen inta yeeleen uma socdo oo Morocco oo socda war Morocco tag soo guurso xarab sameey laakiin waxa top secret ku aadaan waxa social media la iimaanin ha isku dayna anaga aad gabdhaheena quruxda badan ilaahayna si inaan niid nooga disho cawaana taa waxa rabta sameey passport soo qaad caawad xarka ku dhaay intaana dolash wuxuu ku leeyahay aniga runay Soomaalida markay qurbaha tagaan sidii wadanka lagu yeelaa camal waa qaarna wax way bartaan qaarna wax ma bartaan qofkana hadduu luqadana maaha aqoon maaha horta taasan midaan kale taas luqada aqoon maahan walaalkiiyo luqada waa aqoon maahan ama cilmi maahan luqada Soomaaliga maanta qofka noo imaado maanta noo imaado Afrikaanadan dariskeena ama wadamadan dariskeena markay Soomaali imaadaan ee luqadan barteen ma luqadan aqoon u helay PhD ma ku qaadanaa PhD miya masbaaj ku qaadanaa ama wuxuu ku qaadanayaa master ku qaadanaa taas midaan ka leeyahay master kuma qaadan luqada aqoon maahan boqolaal luqad ay u aqaanin maanta horumarka sameeyay meeshaas qofka shakhsiyadiisa ku xiran tahay iyo creativity soo abuuri karo change mind maskaxdiisa u bedeli kara ku xiran tahay qofkana wuu guursan karo fiiro qofkana asaa dooq iskale dooqa ku challenge garan gabdhaha wanaagsan waa ku dhahay gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha ugu wanaagsan waay gabdhaha dunida ugu qiimaha badan waa gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha ugu wanaagsan waay wadanka maanta doo gabareen fiirura gabdhaha Soomaaliyeed maqaayaday ka shaqeynay dukaanay ka shaqeynaysaa dharay gadaysaa nolosha guriga dhan ay haysaa gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha ugu shaqada badan adduunka waa women for strong waa gabdha adag waa gabdha for strong waa gabdha adag
laakiin gabdhahan waxaa ku jiro qaar qalloocana ku jiro raggana qaar qalloocana ku jiro marka sidaan u wanaajin karnaa waa in wacyigelin badan la sameeyaa seminaaro badan loo sameeyaa sidii iskugu soo dhawaan lahaayeen challenge loo sameyn lahaa run waay ninkan qurbaha hadduu joogo 30 sano hadduu qurbaha joogo nolosha ka dhacsan yahay marka inuu xagga aado sababaa jirto sababta raadi marka cabdiyow with cause complication marka cudurka la fiirinaa inta cudurka la daawin waxaa la raadiyaa complicationka la fiiriyaa outcausekiisa etiologigiisa la fiiriyaa cudurka we have the disease hor lagama daaweyo we have to take your treatment we have diagnosis-ka laga gaari karaa marka waaye xaaladan see diagnosis oo gaari karnaa marka adee ku taala ana ii taala marka seen ku xalin karnaa gabdhahena waa gabdhaha ugu qiimaha badan waraa kugu agbahanaysaa midda cadaanka dee maanta baa gabadhan kale aad guursatay isku dhaqan matiinbo different culture laba culture kala watiin isma fahmi kartiin badanaa wararaa imaanaya marka isku day inaad xaaladda dejisid wanaajisid qiimaysid adoo wiilasha Soomaaliyeed ama ragga Soomaaliyeed dhaleecinin gabdhaha dhankoodana dhaleecinin baasha dhexdhexaad ka dhig walaalkay qaaliga tahay thank you ku salaamaya weli wanaagsanaa tahay qiimo badanaa tahay marka baasha dhexdhexaad ka dhig adiga wax wanaaji adiga inta isku dayd adiga kulli dadka aan wax wanaajino tigida soo goostay waa socda falxumada ku dhashay midda labaad raal maya aflagaada ma jirto dadka aflagaadeen ayb no for patient no for bad beating for bad beating ay maya qofka ku xadgudbin waxaas walaa xanaaqa iga keenayo sababtoo ah don't know anger xanaaq maya xanaaqin walaalkii qaal muuqaalka duu soo gaaro meeshaan meel sare sii gaarsiiyay muuqaalkan waxaa arkaysaa dad waaweyn oo 10 mar ku dhali kara ama aqligooda iyo garaadkooda ama jirkooda haddaa isku fiiriso iskuma qalmaan gar iyo gafuura wada leeyihiin caasi waxay u dhaqmayaan sidii cunugiro 10 sano jiro waxaas laga wantoonaado adduunka la xoona baxay aniga waxyaabaha qaar social media imaado wallahi aan ku arko ma ka gaba karo marka aamuso karo sababtoo dameerkayga ima wasiinayo inaan aamuso ama aan isgaabiyo qurba waa limaada waxbaa la bartaa waxbaa la faa'iidaa laakiin ummadda kaleeto iyo wixii social media soo galaa laguma kaco qurbaha wax run waay fursad haysta dadka qurba joogto fursad haysatiin for big chance fursad weyn haysatiin ka faa'iideysta walaalkii saasun leeyahay horta laga faa'iideysto run waay Soomaalida marka qurbaha tagaan maqaayadoon kala furte shaah lacaba war isku imaanaa qurbaha marka fursada taale ka faa'iideysta hala shaqeysto oo wadanka dib ugu soo laabta wadankiina maal gasta dib dhiska wadanka ka qayb qaata guri ka dhiso saad bari ilaa meesha saad madagni adi qurba joog leh ma ahane maya qurba joog ma ahanaysid wadanka imaanay mar wadanka waa imaanaysaa wadankaad horumarso thank you it's good idea isku day talaabta qaadaysid waxa asmeynaysa in wax top secret ay ku yihiin lacag cadaan gurso waxa rabto samee meesha rabto ku dhac ma fahant indhaha fara laga gelinay si tartiib lugaad hoostooda ka soco video waxa ka codsanaa share iyo like comment la wadaagto ana video waxaan ka codsanaa share like commentiga share like comment subscribe share like comment please subscribe to my channel muuqaalka kale noogu xigo daawasho wacan walaalkay qaaliga ama walaasheeda qaaliga share garay faraxyaash isku dayay in gabdhaheen quruxda badan gabdha qurux badan waay gabdha wanaag badan waay gabdha qiimo badan waay farxyaal wanaagsan ku jiro farax qiimo badan ku jiro marka yaa la sacaynin ayada la iska daayo iyo xaaladana dejiya challenge iyo noqonin mid xad ka baxe aan leeyahay daawasho muuqaalka kale noogu xigo oo ilaahay nasiye inay niyad uga jibiyaan hala gaarsiyo waa codsi videogan hala share garay ma fahanteen naag cadaan waa la guursan karaa calafka ilaahay oo suukin dari kara ama madow ha noqoto ama cadaan ha noqoto xirata sax way gabar cadaan waa guursan kartaa gabadha cadaanka duu ilaahay calafka ugu daray oo ilmo ay kaaga dhex jiraan oo labadii inuu ilaahay ilmaniisi dhexdin ilmo ka awarraw qof idin kala celinay male gabadha cadaanta waa guursan kartaa waana ay sida ka dhigtid waay adiga haddaa dhaqan fiican tahay ama akhlaaqiyadkaaga fiican yahay ama attitude-kaaga qiimihiisa sarreeyahay valuegaaga sarreeyo
gabadhaas waa wanaajin kartaa iyadoo caddaan ah gabdhaha qof kasta adi bini'aadanimada ka tagin mar walba wanaaji qof kale humanity samee mar walba humanity inaad samaysid qof naxariis badan inaad noqotid ma ku dhahay gabadhaas unaxariisantan unaxariis kuma dhahay wax walba inaad naxariista mar walba aad qof u naxariistid isku day bini'aadanimada wax walba aad ka firisid bini'aadanimada waa shay qaali ah waaye humanitieskaaga inaad fiirisid aad ficnaysid isku day mar walba gabdhaha caddaanka hadaa guursatiin hataa waayo culture dhanaa wataa waxaa wataa adi xukulada markaas wiil kuma dhaysa laakiin xukulada gabadhaas yaa qabo wiil soomaaliyeed qabo gabadhaas ixtiraam kula dhaqan wanaaji qiime tixgeli respect sii mar walba respect for life respect mar walba sii xishmee daawasho wacan calafka waa iska jiraa laakiin waxyaabaha qaar ay ku dhaqmayaan ay social media intay la yimaadaan rag weyn oo gafuur gar oo wada 40 sano jir iyo 30 sano jiryaale ay ku leeyahay anaga xaleemada meherkan ugu qaaliysay intaan ugu qaali meherkaaga ma qaa meesha ka caa indhaha faraaka gelin meherkan qaaliga naga dhamo ana dhahayo cabdiyo naga dhaafay aday meherkan ugu qaalina walaalkeyga naga dhaafay walaalkeyga meherkan loo raqiisiyo hanoo raqiisiyo meherkan muuqaalka kale nooxo intaasna kaftan waay iyo baashaal waay fanfan waay barnaamijka daawasho wacan muuqaalka kale nooxo please subscribe to my channel video ha loo share gareeyo ilmaas ciyaar suuqin